degdegii fuday degalkuma dhismo keligii doobyaha talada ka duda daraja ma hele degdegii fuday degalkuma dhismo keligii doobyaha talada ka duda daraja ma hele كل بدن بالوجرة هذه اللي إذا غفوا بهلا شيء قبل المثال مركا دمانتي وسلامتي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سلام جديد ريال دوما سنتين إذا كم هذا علينا وقتك هي هوشة ديري جدك ديرا نبكي فرها بدنا أي نمدبنا كسر شقيني تاسوها هاي إنه ندت كأنه يضل كأنه كسر نو culays aynu u aragnay inay lagama maarmaan tahay in laga saaro walaalayaal waxaynu maanta isugu nimid oo dadka intaa leeg isugu yimid qolooyinka kaamirooyinka watay waxaan rabaa inay si fiican u muujiyaan shacabka halkaan isugu yimid maanta ma jiro qof la soo kireeyey oo kira lagu keeno sidii caleemasaarkii ama xafladdii ay shalay sheegteen kooxdii qarandumis inay qabanayaan oo kale xafladdaas waxaa isugu yimid dad la soo kireeyey tikidha loo soo gooyey dayuurada la soo saaray ama dayuurada barmuudaha ha noqdaan waxaynu arki jirnay barmuudooyin kale laakiin dayuurada barmuudaha lagu keenay waxaynu arki jirnay marka hawlahan oo kale la qabanayo shacabka deegaanka hawshaas loo qabanayo hawl uu leeyahay inay noqoto intaan Soomaaliyeed ee rag iyo dumar leh aqoon-yahan leh dhalinyaro leh waayeel leh odayaashii dhaqanka leh ciidamadii qalabka siday leh waa shacabkii reer Jubbaland oo rabitaankooda iyo dareenkooda iyo siyaasadooda iyo mustaqbalkoodaba raba inay ka tashadaan ana sabdaraa in Jubbaland ay dadka reer Jubbaland shalay telefishinada ka arkayaan waxa dhacaya iyagoo reer Jubbaland aan ka qayb gelin dad sidii la arkaya 4 maalmood garoonka laga soo daabulayay la isugu keenay dadkii reer Jubbaland jidadkii laga xiray oo qof shalay dad doontay aanu ku jirin arrimaha meesha yaalla aynu isugu nimid maanta waxay tahay inaynu dareenkeenna isbeddel doonku uu caddaado oo ah in ciddii aan doorannay aynu ku kalsoonaanno isla markaana cid naga leexin kartaa ayna jira waan ognaa kuwa badan oo inaga ka mid ah in la xidhxidhay kuwa badan loo hanjabay kuwa badanna ay dhinteen allahu naxariistee qaarna ay dhaawac yihiin intaasoo dhan waxaa loo jeeday in laynaga leexiyo hadafka aynu ku soconno horaynu u sheegnay inaynaan ka leexanaynin haddii aan la yidhaahdo Jubbaland waxay u baahan tahay midnimo waa sheegnay 6 bilood 7 bilood mar laga joogo hadday dhici weydo doorasho la wada leeyahay waxaa dhici doorasho la kala leeyahay waxaa dhici caleemasaarre kala duwan waxaa dhacaya baarlamaanno kala duwan baa dhismaya waxaa dhismaya madaxweynayaal kala duwan horaan u sheegnay maaha waxaan ku faraxsannahay shacabka Jubbaland inuu kala qaybsado horaynu isugu sheegnay maaha waxaan ku faraxsannahay caleemasaarre kala duwan maaha inaan ku faraxsannahay madaxweynayaal kala duwan laakiin waana lagu khasbay waa laynagu khasbay dhammaanteen sidaas oo ma ahayn
qofkii Jubbaland madaxnimo ka doonaya waxa la rabaa reer Jubbaland inuu soo hor fadhiisto oo yiraahdo walaalayaal codkiina ay siiyeen laakiin waa la idin khasbayaa iyo maxaan ku yiraahdaa idinkoo fadhiyaan doorasho ku samaysanaya intaan 10 qof meel ku xareysto taas reer Jubbaland waa diideen arrinta shalay dhacday ee dadka isugu yimid halkaas waxaa nasiib darro ah inay yihiin dad loo soo kiraystay inay qaranka Soomaaliyeed dumiyaan waxaa muuqata in ay caasimaddii qaranka Soomaaliyeed diideen oo ay yidhaahdeen waa barmuudaynaynaa waxaa muuqatay oo la wada arkayay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya waa astaanta qaranka ma aha Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo kaliya waa astaanta qaranka Soomaaliyeed in lagu aflagaadeeyo oo loo gafo oo la dhibaateeyo oo wax laga sheego waxay la mid tahay qaranka Soomaaliyeed oo wax laga sheego sidaas darteed annaga reer Jubbaland haddaan nahay wixii shalay dhacay ee halkaa ka dhacay xaal baan ka bixinaynaa xaalkaana waxaan siinaynaa qaranka Soomaaliyeed waan ognahay bulshada Soomaaliyeed meel kastoo ay joogtay gudaha iyo dibadda inay ka cadhootay ka xanaaqday ka xumaatay isla mar ahaantaana wixii xalay iyo shalay la isdhaafsanayay waynu arkaynay dhammaantiin reer Jubbaland xaal bay idinka siinayaan ummadda Soomaaliyeed meel kastoo aad joogtaan gudaha iyo dibadda waxaa kaloo meel ka dhac ahaa hadalladii lagu hadlay ee ahaa gabdhaha Soomaaliyeed waynu ognahay dariiqii loo soo mari jiray dhibkii loo mari jiray xoolihii laga bixin jiray hubkii laga bixin jiray gabadh la dharbaaxay ama gabadh la xumeeyey ama gabadh wax laga sheegay qaran dhan ummad dhan baa ku rogman jirta aad baa u mahadsantihiin gabdhaha Soomaaliyeed ee Jubbaland iyo gabdhaha Soomaaliyeed oo dhan xaal baa idin siinaynaa haddii alla yidhaahdo xafladda xaalmarintana waa dhigi doonaa haddii alla yidhaahdo xafladdaas iyo xaalmarintaana waxaa bixin doona madaxweynaha qaranka haddii alla yidhaahdo intaa marka laga tago dadkii shalay meesha isugu yimid noocyadooda kala duwan iyo sida ay yihiin saaxiibbaday baa sifeeyey laakiin waxaan rabaa meeshan waxa ay u yimaadeen caleema saarra ma ahayn xal Soomaaliyeedna ma ahayn waxay ahayd kow inay ummadda Jubbaland dhibaato ka dhex abuuraan labo waxaynu ognahay qaranka Soomaaliyeed iyo dawladda shisheeyaha ishaya inay qaranka Soomaaliyeed lugta qabtaan si looga adkaado taladooda labaadna taasay ahayd intaa marka laga tago waxaan rabaa inaan baaq u diro ummadda Soomaaliyeed qodobkooda saddexaad waxaa weeye doorashada ololaha doorashada 2021 sidaasi darteed shacabka Soomaaliyeed guda iyo dibad meel kasta uu joogo dadka qarankii Soomaaliyeedna inay dawladda shisheeye u luqabtaan u yimid ummadda reer Jubbalandna inay isku dilaan ee u yimid 6 su'aalood baan weydiinay ood wada og tihiin isbedel doonku 6 su'aalood buu weydiiyey dabcan hadday madax inoo noqdaan sida maamulkii hore ee Jubbaland inoola dhaqmayba inoola dhaqmi doonaan maadaama ay raalli ka noqdeen dadka noocaas ah Soomaali way u calaamadsan yihiin way taqaanaa
in cod la siiyo 2021 qofkii Soomaaliyeed oo cod siiya wuxuu ka mid noqonayaa inuu ku garab siiyey qaranduminimada iyo in Soomaaliya laga adkaado baaqayga waxaa waaye nimanka qarandumiska ee Jubbaland isugu yimid ee Kismaayo joogay ee shalay hoolka wada joogay ee aad arkayseen waxa ay ka shaqaynayeen 2021 qofkii cod siiya inagama mid aha Soomaali kama mid aha inta marka laga tago reer Jubbaland oo annagu waxaanu horena u sheegnay haddaynu nahay isbedel doon annagu markaan leenahay waa inagoo dhan in Jubbaland horumar la gaarsiiyo tusaalooyin yaryara oo maamulkii hore ee faylgaroobay ee fashilmay ee Jubbaland uu dadka uga dhigto maxaanku idhaa calool jileec waxay yidhaahdaan gabdhaha dhoobley laga soo qaadayo ee inay umulaan doonayey dayuuradihii lagu soo qaadayey waa la xanibay annaga waxaan rabnaa oo noo qorshaysan gabadha dhoobley joogta cisbitaal in dhoobley loogu sameeyo ee dayuurad la soo saarin taasaa noo qorshaysan maahay maanta in dayuurada lagu soo qaado gabdhaha umulaya waxay ahayd inay cisbitaallo meeshoodii ku haystaan lacagtii isbitaallada loogu dhisi lahaa ee iskuullada lagu dhisi lahaa ee waxbarashada lagu dhisi lahaa qarandumisnimaa lagaga shaqeeyaa iyo laaluush ugu yaraan $1 milyan oo baa ku baxday dadkii 5 maalmood la soo daabulayey ciidamadii Jubbalandna mushaar la'aan bay waddada la dhooban yihiin markaa horaan u sheegnay ciidamada Jubbaland iyo ciidamada Soomaaliyeed meel kastoo ay joogaan dhowr sano ka horna waa sheegnay haddana waan ku celinaynaa mudnaanta koowaad bay noo yihiin iyaga iyo xaasaskooda iyo carruurtooda xagga waxbarashada iyo caafimaadka dhinac walba iyo mushahaarkooda noloshooda annaga maamulka aan madaxda ka noqon doonna haddaana doorantaan haddii aan la yidhaahdo intayada midkaa doorantaanba waa isku kalsoonnahay man dhici doonto askari reer Jubbaland inuu mushahaar waayo ma dhici doonto inuu $100 qaato bishii because waan ognahay inta inayna waxba ku taraynin ma dhici doonto in uu dayac meelaha la taagnaado ma dhici doonto inayna darajo lahaanin 8 sano hal aliflaa inaan lacagta guryaha iyo magaalooyinka iyo dayuuradaha iyo maxaanku idhaahdaa laaluushka iyo dadka lagu gurayo qaranka iyo ciidamaday geli lahayd waxbarashaa lagu samayn lahaa gabdhaha umulaya dhoobley jooga iyo kuwa badhaadha jooga iyo kuwa kulbiyow jooga iyo kuwa jooga afmadow iyo gedo iyo inta kaleoo degmooyinka ayaa lagu dhisayaa haddii aan la yidhaahdo qodobka kale reer Jubbaland diyaaru ma aha 8 sano inay 2 kiiloomitir ku xariisan yihiin Sacmooja iyo Madhamaato reer Jubbaland isbedel doonku wuxuu u diyaarsan yahay isagoo kaashanaya annagoo kaashanayna dawladdeenna federaalka in Jubbaland ay ku shaqayso caasimaddii dhabta ahayd ee Jubbaland ee Bu'aal waa garanaynaa falsafadaha iyo siyaasadaha iyo ujeeddooyinka ka dambeeya in la xoreyn waayo deegaannadaas muddo intaa leeg oo in yaroo kooban lagu ekaado ujeeddooyinka ka dambeeya waa garanaynaa si fiican baa u fahamsanna waxaan rabaa hadalkayga inaan ku soo ururiyo Soomaaliya dad isdiidan oo kala cararaya oo kala ordaya waa la arki jiray
annaga isbeddel doonka waa midaysanna waana midaysnaan doonnaa jubbaland iyo shacabka soomaaliyeed iyo ummadda soomaaliyeed meel kastoo ay joogaan inaan u sheego jubbaland waxa ka socda ee laysku haysto si fiican u dhegaysta warkaas waxa laysku haysta ee jubbaland ka socda ma aha doorashada jubbaland waa qarannimadii soomaaliyeed waxa laysku haysto soomaali si fiican ha u dhegaysato waxa laysku haysto waa qaranka soomaaliyeed jiritaankiisa iyo badbaadintiisa golaha badbaadada jubbaland macnihiisu waxa weeye golaha badbaadada qaranka weeye waxaan rabaa walaalayaal ma aha kama dhici jirin soomaaliya laba madaxweyne in lagu caanashubo isku meel in lagu caleemo saaro waxay muujinaysaa bisaylka siyaasadeed iyo waxa ina hor yaalla waxa uu yahay taa macnaheedu waxay tahay doorashaan samaynay doorashada aan samaynay waan garanaynaa inayna ahayn tii aanu rabnay laakiin waana lagu khasbay waxaannu diyaar u nahay oo soo dhowaynaynaa taa waxay caddaynaysaa inaanan kuraas u ordaynin baahi noo qabin aanan u haliilaynin sida dadka qaarkii ay dhalaan iyo dhagalaan ugu socdaan waxaan diyaar u nahay inaan u hoggaansanno habraacii dawladda federaalku ay keentay oo ay tiri doorashadii jubbaland waa lagu celinayaa haddii shacabkeenna iyo ummaddeennu noo garato inaan hoggaaminana waa hoggaaminaynaa hadday qof kale u garatana waa la shaqaynaynaa laakiin dad aan meelaha ka soo ururiyey baa ay dooranaya dad aan dayuurada ku keenin maxaa dayuuradaha looga baahday annaga meel la qaataan la'anahay shacabkeenni waa kanaa hoolka dadkana u baahnaa inay tagaan ayagaa madax loo noqonaya dadkii madaxda loo noqon lahaa waa kuwanaa ma dadka galabta dhoofaya qaarna shalay dhoofeen baa madax loo noqonaya maxaa dayuuradaha loogu soo guraya lacagta dayuuradaha lagu soo kiraynayo ee weliba qarankii soomaaliyeed hawadiisii lagu xadgudbayo ilaahay baan idinku dhaariyey shakhsiyaad ku soo dhuuntay dayuurad qarankii soomaaliyeed ku xadgudubtay igu qari dayuuraddan raadaarka ka dhuumo badda agteeda mar maxaanku idhahdaa raaskaambooni ka soo gal geedkan ka hoos bax kismaayo igu deji ma qofkaasaan xukuumad duuni doona ilaahay baan idinku dhaariye ma kuwaasaan u dhiiban karnaa maxaanku idhaahdaa maseerkeenna aan u dhiiban karnaa waxaa la mida kuwa kale caleemasaar xalaal iftiin baa la qashaa waa la cilaamiyaa taariikh heblaa la qaban doonaa baa la yidhaahdaa caawa ii soo dhuunta berritaan qabanaya waxaas xaggee lagu ark waxaa soo hadhay waxaa jubbaland ka dhacay oo aan ku soo gebagabaynaya annaga horena waa idinku sheegnay laaluushna nalaguma siri karo afminshaarnimona looma keeni karo xil baan naloo sheegi karin intaan waxa ay ku qanacdaan ku qanacnaa iyo inta kale ka badan ee maqan hebel baa lala shawray iyo hebel baa loo yimid iyo hebel baa xagga laga soo maray waxaa iska ilaawa horena waa idinku sheegnay waxaa soo hadhay dib u heshiisiin jubbaland waxa ka dhacay maadaama aanaan ku faraxsanayn jubbaland inay heshiisaan diyaaruna laakiin yaa heshiisiinaya ma kuwa ujeeddadoodu tahay inay qarankii soomaaliyeed ku duulaan baa heshiisiinaya annaga horaan idinku sheegnay wada hadal mabdi'iyan waa soo dhowaynaynaa in la wada hadlo wada hadalka maxaa ka soo baxaya waray doorasho ma dhicino doorasho hadda inoo qabto waxaad sheegaysaa odayaashii dhaqanka ku celiya maxaan ku idhaahdaa inay baarlamaankii soo qoraan in dawladdii federaalka ay timaado maxaan ku idhaahdaa inaan la qarin ma qarinayno madaxweynaha dawladda federaalka maxaa cabdullaahi farmaajo waa madaxweynihii
weeyaan dambi ma aha shalay meeshii ay isku caleema saarayaan hal sawir oo madaxweynihii qarankaa saanta qarankaa waa laga waayay waxaana suraa sawiro ummado kale iyo dowlad ra'iisul wasaare xasan cali khayre waa ra'iisul wasaaraheen hadday dad badani u haystaan isbeddel doonku wuxuu xidhiidh la leeyahay dowladda federaalka haddaanaan dowladda xidhiidh la lahaan yaan la lahaan lahayn ma dowlado shisheeye oo aan Soomaali ahayn waa ku faanaynaa waa ku faraxsannahay waana ku dhiirannahay madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo iyo dowladda federaalka inaan dhegaysanno taladooda iyo meesha ay noo hogaaminayaan haddii alla yidhaahdana annagu jubbaland hogaamintayadu waxay ku qotami doontaa Soomaali midaysan hawada Soomaaliya hadday dowladda Soomaaliya tiraahdo laguma soo xadgudbi karto kuma soo hogaamin doono shisheeye badda Soomaaliya haddii ay dowladda Soomaaliya go'aan ka qaadatana go'aanka ay ka qaadatay baa reer Jubbaland is wada garab taagaya waxaan ku soo ururinayaa Soomaaliya ha noolaato ha israacdo qaranka Soomaaliyeed ha guulaysto saaqidiinta reer Jubbaland haddaynu nahay halkudhageenna waxaa weeye saaqidiinta siyaasadda ee Jubbaland ku soo duulay ma maqlayno ma arkayno annaga waa joognaa intaasaanu joognaa mid isbeddel doonka ka mid oo la kulmeen ma jirto mana la kulmi doonaan haddii horaan u sheegnay mabdiyan wadahadal diyaar baan u nahay wadahadalka uu hogaaminayo suldaan cabdulaahi cali sokor horaan u sheegnay waa suldaankayagii waa soo dhowaynaynaa waa dhegaysanaynaa laakiin saaqidiinta siyaasadeed ma soo dhowaynayna